xisbiga mucaaradka ee cid ayaa si adag uga jawaabtuu ka bixiyay wasiirka amuraha gudaha ee Soomaaliland in dawladda Djibouti ay Soomaaliland ka soo dalbatay inay ku soo wareejiso ganacsade Axmed Geele Arab oo kamid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland. sidoo kale xisbigu waxa uu ka hadlay war-saxaafadeed ka soo baxay bangi ku yaala dalka Djibouti oo sheegay in dacwad u dhaxayso bangigaas iyo ganacsadaha Axmed Geele Arab. xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee Yusuf Kays Abdullahi ayaa ugu horeynba waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland looga baahnaa inay go'aan adag ka qaadato sidii xukuumadda madaxweyne Axmed Silaanya oo sheegay inay ka diiday dawladda Djibouti doonisteed ah in loo gacan geliyo Axmed Geele Arab marar hore oo uu talada dalka hayay madaxweyne Axmed Silaanya. waxaana uu soo jeediyay xukuumadda garwadooda ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay go'aankaas oo kale ay qaataan. dawladdii hore uu hogaaminayay Axmed Maxamed Silaanya ayaa kayskan uu bartamaheedii bilaabmay. waxa la soo qoray warqad markaa ay lahaayeen hana lagu soo wareejiyo ganacsade Axmed Cismaan Geele. dawladdii hore mowqif adag bay ka qaadatay arrintaa. waa la isaga yimid qoraal baanay ka soo saartay arrintaa. iyadoo roolka ugu weyn ay qaadatay wasaaradda arrimaha dibadda oo markaa uu joogay Saacad Cali Shire. haddaba markaa hore waxay taagnaayeen la soo dhiibo. maanta xaaladdu halkii taagantay waxa weeye ganacsigiisii halkan uu ku lahaa hal la xayiro hal soo dhiibo iyo waliba Hargeysana lagu maxkamadeeyo. saddexda qodob baa israacay. laba qodob baa ku soo kordhay intii hore oo ahaa in hantidiisa halkan taalana la xayiro iyo in halkan lagu dhex maxkamadeeyo. haddaba haddaan ku horeeyo hadalka Maxamed Kaahin Axmed ee shalay uu yiri arrinta waaranka iyo arrinta maanaan ogeyn labaynu kala saarayna. Maxamed waxay ahayd inuu sheego inay jirto dacwadani oo ay soo martay wasaaradda arrimaha dibadda oo ay soo martay wasaaradda cadaaladda oo ay soo martay xeer ilaalinta oo ay soo martay oo imikana la taalo maxkamadda racfaanka. wadarkiisa inuu siyar diidsiinayo. waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin cad cid laga qarinayaana ma jirto. xukuumadda waxaan leenahay mowqif adag baa la idinka rabaa in arrinta ka istaagtaan. waxaan leenahay halkii Axmed Maxamed Silaanya markuu dalkan hogaaminayay uu ka taagnaa ayaa la idinka rabaa inaad ka istaagtaan. bangigan sida la xogtiisa ku hayno 330 waxa leh horta madaxweynaha dalka aynu jaarka nahay ee Ismaaciil Cumar Geele ayaa 30% leh. waxa la inoogu sheegay inuu madax bannaan yahay laakiin waa share buu ku leeyahay 30% ayuu leeyahay. saameynta uu ku dhex yeelanayo bangiga halkaas ka cadda. waxyaabaha aan la yaabanahay waxa kamid ah Axmed Cismaan Geele ugu yaraan 7 bangi buu la macaamilay oo uu lacag deena ka qaatay oo uu celiyay oo ilaa imika macaamiltan ka dhaxeeya. sababta bangiga uu madaxweynuhu sheerka ku leeyahay u daba socda maxaa bangiyada kale u soo qabsan waayeen hadduu burcad yahay oo uu soo dhacay Djibouti. dhowr bangiyo Djibouti ku yaalaba ama buu ka qaatay oo uu celiyay. sababta bangigan u daba socda maxay tahay? su'aal la isweydiinayo weey. bangiga waxa leeyahay xalay tolo waxa tiraahdeen yaan la siyaasadeyn baa tiraahdeen. yaa siyaasadii deedika siyaasadii bangigu isaga arrintan siyaasadeeyay. marka uu yiri go'aanadii maxkamadda Djibouti gaadhay Hargeysa fulintiisa laga qaado miyaan siyaasad ahayn? waa siyaasad. waxaanu ka warhaynaa markaan dokumentiyada eegnay
in lacagta bankigaasi uu sheeganaya marka laga jaray uu 128 milyan oo daalici u harayso Axmed Cismaan Geelle marka lacagta bankigu imka sheeganaya laga jaro sidoo kale mar hore gartooda la galay oo wasiir ka mid ah Soomaaliland uu galay waxa naloo sheegay bankigu 20 milyan buu sheeganaya in Axmed Cismaan uu celiyay 25 milyan in wasiir ka mid ah wasiirada xukuumadda Muuse uu yiri warde bankiga 25 milyan soo celiyay ninka waxa ku lahaydeen soo 20 milyan mu ahayn soo 25 kama haysaan dee 5 baa ka haysaan oo soo celiyay xukuumadda waxa leeyahay arrintan waxa lagu khalkhal gelinayaa maalgashiyaasha u dhashay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa aan u dhalanay doonaya dalkan ay maalgashadaan haddaynan mas'uuliyadda qaadi karin inaynu qofka maalkiisa iyo naftiisa ba ilaalino daadir waxba isu sheegimeen dastuurku damaanad qaaday inuu qofka xuquuqdiisa naftiisa iyo maalkiisa ba ilaalinayo annagu mar horena waanu ka hadalay ucdahan waxaanu leenahay hal la ilaaliyo dadka maalkooda iyo naftooda xukuumaddu iyada dadka u dhaaratay iyada dalkan u dhaaratay inay qofka maalkiisa iyo naftiisa ba ilaaliso waxaanu ka sugaynaa jawaab cad baanu ka sugaynaa oo waliba uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland arrinta mowqifku ka taagay baa laga rabaa inuu sheego oo leenahay madaxweyne arrinta adiga laga rabaa buuq iyo sawaxan ay shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ku keentay waxaanay shaki gelisay maalgashiyaasha dalka gudihiisa iyo dibadiisaba shaki bay gelisay waxaan leenahay ucdahan mowqifka xukuumaddu arrinta ha cadayso Luqmaan Maxamed Farax Bulsho TV Hargeysa